السلام عليكم. qisadani waa qiso cajiib ah. Doctor baa wuxuu isbitaalka ku soo galay si degdeg ah, waayo waxaa loogu wacay inuu qalin sameeyo. Wuuna aqbalay codsigii. Si dhaqso leh ayuu dharkii iskaga beddelay, wuxuuna dhaqso ku aaday qolka qalinka. Albaabka hore qolka qalinka wuxuu kala kulmay wiilka qalinka lagu samayn doono aabihiisa, isagoo sugaya dhakhtarkii wiilkiisa qalinka ku samayn doono. Odaygii wiilka dhalay markuu arkayba dhakhtarkiiba ayuu qaylaba afka furtay, wuxuuna lahaa, maxaad saacadani u socotaa? Soo moogid in wiilkayga noloshiisa ay khatar ku jirto. Dhakhtarkii inuu dhoola caddeeyay ayuu ku yidhi, raalli noqo, aniga isbitaalka ma joogin, sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan ku imid. Markii la isoo wacay waxaa la ii sheegay inaan wiil yar qalin ku samayn doono. Waxaan rajaynayaa inaad isdejiso si aan shaqadayda u qabsado. Odaygii aad buu u xanaaqay, wuxuuna yidhi, maxaad tiri isdeji ah? Ka waran haddii wiilka la qalayo ahaan lahaa wiilkaaga, miyaad isdejin lahayd? Waxaad kaloo iga jawaabtaa, haddii wiilkaaga hadda dhinto maxaad samayn lahayd? Dhakhtarkii haddana isagoo dhoola caddaynaya ayuu ku yidhi, carro ayaan laga abuuray, carragana waanu ku duugayaa, ciise iyo sharaf allah ayay u sugnaatay. Dhakhtarka nolosha ma sii dheerayn karo, mana soo gaabin karo. kac oo wiilkaaga intaana qalinka ku samaynin la hadal, insha allah inta awoodaydana waan dadaalayaa. Qalinkii saacado badan ayuu qaatay. Dhakhtarkiina aad buu ugu farxay natiijada qalinka. Banaanka ayuu u soo baxay. Dhakhtarkii odaygii ayuuna u sheegay warkii farxadda lahaa ee ahayd in uu wiilkiisa u badbaaday. Isagoona ka sugan jawaabta odayga uu bixin doono ayuu ku yidhi, wixii su'aalaad qabto u sheeg kalkaalisada. Uuna baxay isagoo degdegsan. Odaygii kalkaalisada ayaa wuxuu weydiiyey, maxaa dhakhtarka sidaan oo dhan iskula weyn yahay? wax yar muusigu si aan si fiican ugu waraysto xaaladda wiilkayga. Kalkaalisadii iyadoo indhaheeda ilinka qabanaya ayay odaygii ku tiri, shalay ayuu dhakhtarka wiilkiisa shil baabuur ku dhintay. Dugtii wiilkiisa isagoo ku mashquulsan markaan ugu soo wacaynay qalinka wiilkaaga. Hadda markuu nolosha wiilkaaga badbaadiyey, wuxuuna u sii cararay si uu u dhammaystiro duugitaankii wiilkiisa. haddaba nuxurkii qisadu waa maxay? weligaa ra'yigaaga gaaban ha ku xukmin qofna, waayo moogid sida ay noloshoodu tahay iyo waxa ay la tacaalayaan. waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. haddii aad ka heshay muuqaalkani like saar, siina gaarsii saaxiibadaada ilaa 2 qof. intaanu ku kulmi doono kani muuqaalkiisaga. fii amaanillaah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.